أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي mahadiis baa marka hadu ku soo laabanay anagu wanaag is xasuusinayna xubin iska reebayna. طبعا waxaan noo socotay silsilo aan kaga hadlaynay fahamka saxa ah diinta islaamka loo fahmo macnaheedu ay tahay diinta islaamka inaan la kala googoosan karin oo qayb meel looga dhaqmo qaybta kale aan laga tagi karin. waxaan dhowr jeer aan ka hadalnay xalaqooyinka fahamka shacbiga ama ummadda ama mas-uuliyiintaba halaha ay meeshay kaga jiraan tadayunka maqshuushka ah ama qashka kaga jiro. bal waxaa badanaysa waxaa arkaysaa mas-uuliyadda hadday dayacanto oo qofkii mas-uul loo dhiibay oo mas-uuliyadda dayaco waxaa imaanaysa in uu biro ilaahi subxaana wa tacaala oo halkaas fitan ay ka ratibmaan oo ummaddii ay balaayo iyo dil iyo dhib ay timaado. waxaan la soconnaa maalmahan mas-uuliyadda inay dayacanto ummadda Soomaaliyeed, balse waxaa la yaab leh dad salaad tukado oo soomo ayaa u sacbinaya dadkaas mas-uuliyiinta ah oo aan xilkooda gudan waayey. markhaati ay ka naqanayaan qiyaamaha waxyaabaha ay ugu sacbinayaan dadka. qaraxyo ayaa dhacaya, dhiig muslim ayaa la daadinayaa, dad muslim oo beri ah ayaa la dilayaa, haddana qof lagula xisaabtamayo mas-uuliyadaas ma arkaysid. waxaa la yaabaa marka dadkan banaanka jooga oo facebookyada leh oo dhiigga muslimka xataa qabiil iyo taageernimada qabiil ay taageerayeen iyo dantooda gaarka iyo sandareerta yaroo la siiyey, lacag yaroo la siiyey, inay dhiigga muslimka ah arrintiisa ay ka hadlaynin. nacam, qaraxii hadda dhacay dad beri ayaa ku dhintay, dad mas-uuliyiin ah ku dhinteen. haddana waxaad moodaa dhiigga muslimka inuu hadar iska yahay, yaa lagala xisaabtamaya. annagas haddaan ka aamusno dhiiggaas aan shibkan aan yidhaaho iska daaya, yaa dad la xisaabtamin. nacam, dadka dilay ama oo dilka sheegtay daliil uma hayaan in qof muslim ay beri ay dilaan. dhiigga muslimka ah nabiga alayhi salatu wasalam wuxuu laa yazaalu almu'min fi fusxatin fi diinihi, qofka wuxuu yidhi diintiisa fasaxo kaga jiraa ilaa markuu dhiig galo. markaas wuxuu leeyahay ilaahi subxana wa tacaala dhiiggaas hadarka ama ah kacbada iyuu la dumayaa kaga sahlan agtiisa ilaahi subxaana wa tacaala. laakiin kelmadeedu waxay ku wajahantaha shacbiga oo loo kala qaybiyey, taageero loo kala qaybiyey, oo mucaarad iyo wax loo kala qaybiyey iyo muxaafid, oo aan dunuubta oo dhacaysa waddanka ka dhacaysa ma laha mucaarad iyo malaha iyo muxaafid ma laha. dembigaa dhacay, dembigaas waa dad lagula xisaabtamaa. qaacidaa jirto fiqi asaasi ah u dhehayso damu lmu'min laa yakuunu hadaran, dhiigga mu'minka hadar ma naqanayo wax la iska ilaabo. xataa haddii ay ilaawdaan ilaahi subxana wa tacaala beri annaga dhanuna qabanaya, ciddii ka aamustay, ciddii kaalmaysay, ciddii ku faraxday, kullu dembiga mushtaraga ku naqanaynaa. waxaan ula jeeda halkaa markii halkaa camalo dhiig ay timaado, masalada dhiig ay timaado oo dad la laaynayo, mas-uuliyaddeeda waa inay dowladda ay qaadaa. Soomaali haddaan nahan annaga qabiilka ayaa naga adkaaday. dowladda markaan leeyahay shaksi ulama jeedo. waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay madaxweynaha keliya ataagaan, waa ra-iisul wasaaraha ku jiro, waa tiimkan o dhan, tiimka waddanka maamula dunuubtii ay galeen dadka ku ayidayo oo taageerayo oo dhahaya balse raba inay mar labaad noo soo noqdaan. xaq haddaan rabno inay noo soo noqdaan ma aha. tiim aan ka hadlayna. dhibkeenna wuxuu ka bilaawda markaa tiim ahaan ula xisaabtano. ilan igaa xukunka hay macal wasiirkooda, agaasimahooda guud, waa tiim oo qalad wada gala wey, oo ummadda maanta dhibkeeda aan ka hadlaynin. bal qaraxaa dhacay, qof looma casilo, intaasoo qaraxa waddanka ka dhacday, waxyaabahan ku aragnaa wey. qof looma casilayo, wasiir amni lama ciqaabayo, wasiir kii booliska xukumayo lama ciqaabayo, qad loo qabanayo malaha, kaanaha maruur alkiraam dadku ay iska marayaan. walidaalika qofka waxaa layidhi qalbiga markuu macsida ay ka badato waa cabayaa. wuxuu yidhi tucradu fitna cala alquluubi kalxasiiri cuudan cuudan u nabiga alayhi salatu wasalaam. war dil baa dhacay, waxaan isku mashquulinaa yaa dilay, maxaa loo dilay, war dilka maxaa loo dilay, taas adaa ayaa baaray, cidday ka dambayso cid loo saaranayo ma laha. laakiin mas-uuliyaddeeda soo dadka hadda xukunka hayso ma annaga ummadda yaa u dhiibata wax, yaa sii jooga xukunka ilaa doorasho kale ka dhacaysa yaa haya, mas-uuliyiina haysa. mas-uuliyiintaas marka hadday dad ciqaabaynin ay diinka muslimka iska saarsanayso oo shacabka iska aamusan yihiin waa musiibo wey. walidaalika waa ilaahi subxana wa tacala inaan xasuusina. waxaa laga yaaba muslimiinta salaaday tukadaan,
soonaytu way soomaan sadaqay la baxaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu weydiinayaa cumar wuxuu leeyahay baqara ku dhuntay baladka ciraaq ku kuftay ayaa jidka maxaa u wanaajin weysa laleeyahay dhiigaa daatay lilasaf dad muslimiin kule facebook iyo meelaha ka hadla waxaan ku aragnay waxay ku leeyihiin dad badan la dili jiray gabaraa dhimatay war qatlu nisaa dumarka iyo caruurta xataa jihaadka lama dilo jihaadka jihaad oo dad cadow iska soo horjeedno oo la halayo wuxuu nabiga alayhi salaam dadka shuyuuqda duqowda iyo dumarka iyo caruurta lama dilo ee qabtaa gabaraa la dilay gabar ayaa la dilay haddana waxaa arkaysaa dowladda taageernadeeda ugu sii daran diilkaas wuxuu ku leeyahay caadi weye ama waa lagu gama waxa leeyahay ra-iisul wasaaraha ka dambeeya maya war kulligood waa tiim ha kala jarina mas-uuliyadaas waa liqaan nabiga alayhi salam wuxuu kullukum raaci nacam madaxweynaha ugu weyn falimaamu raaci wa mas-uul can racyatihi madaxweynaha la weydiinaya dhiiggaas ku daata meesha war dhiig ha u malaynayna sahal soomaalida hore ma ah haddaa u malayso dhiig in laisku cabsii karo soomaali ma cabsadaan soomaali cabsi baddaas iyo wallahi ha gelina ayay badda galaan ee soomaali ay galaan soomaali ma cabsadaan haddaad u qabta wadamada carabta wax laga soo guuriyo oo ah afar qarax haddii dhacdo afar qof haddii la dilo dadku waa aamusahayn soomaali dhiig waa kusii wuxuu wadankeena 20 sano udega dhiiga daata wey ninka hadda saacadan iyadoo la joog dhiig daadinaya ka war marka ama aan dad u qabanaynin aan dad u xisaabaynin oo dadka dhan dhiiga la kala yeeshay dhiig hebel qabiil hebel laga dilay iyo qabiil war dhiiga qabiil ma laha damul muslim qabiil ma laha waa in la xisaabtamo dowladdan la xisaabtamo wey mas-uulka ra-iisul wasaaraheeda la xisaabtamo wasiirkeeda kan booliska la xisaabtamo kan asluubta kulligood in la xisaabtamo innahu mas-uuluun waa la weydiinaya qiyaamaha maxaa qabateen ummadii haddii kale waxaa imaanaysa dadka gacanta sharciga inay naftooda gacantooda ku aarsadaan ma fawdo kaleana la celinaya dadaa marka taageersan dhahayo dowladda yaa lala hadlin waa lala hadlaa dowladda mas-uuliyaddaas ilaahay ku xisaabtamaya annagana qiyaamaha ku markaati furayna waa nila weydiinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa loo kala reebin qabiil maaha dowladda laakiin marka aad qabiilka ninka kaaga aad difaacatid oo kan qabiilkiisa difaacdo oo yidhaa maya ra-iisul wasaaraha maya madaxweynaha le maya dhiig iyo meeshaad ku dhumayo war dadka ninka xukun dadka hayo dhan tiimka hadda ha in la kala reeb ma waagi maxamed siyaad oo la bixiyey dulmiga la galaha ilaa hadda socdo tiimka maxamed siyaad marka waa tiima wax qalday oo qabiil kasta leh ayaa ummadda baabi'iyeen oo hanti wadaag iyo waxaan loo baahna keeneen maxamed siyaad keliya la eryaday ninka kasta oo qabiilka ku jiro dowladdiisa qabiilkiisa oo gale muxuu u galaa waa in lagu xisaabtamaa shan adaa ninkaas la jirtay walidaalika kuwan baarlamaaniyiinta waxaa leeyahay war ilaahay ka cabsada kuwa horta dhiig hadda daadana baarlamaanka hore loo haystaa gudoomiye baarlamaanka iyo kii hore iyo ku-xogeenkiisa kulligood waa ilaahay weydiinayo maxaa dhacay wadanka iyaga halkan soo gaarsiiyey maxaa dhacay ummadda taladoodii way diideen waxay diideen xaqay diideen gacantooda iyo jaabka wax loogu shubay ogolaadeen waa sacbiyeen baarlamaan sacbinaya naqdeen maanta soo gaar ka soo socdana saasaa la rabaa ummadda waxaa la rabaa sidii dacayda la hogaaminaya ummadda markii liidarka iyo ninka xaqa sheegaya laga dilo oo ummadda in la adoonso la rabo waxaa la rabaa ummad hogaansamayso oo cabsanayso wallahi soomaaliya saas gumaysi ku hayn waaye shan aa loo qaybiya hal xataa waa xukumi waaye ma adiga afar qof aad dish in lagaaga aamuso amaad dhiiggaa gashay waa ku yaallaa meel baarlamaanka hore oo noo soo naqday nin dembi gale in la soo celiyey ma aha nin dembi gale maxaa u soo ceshanaysa maxaa u taageeraysaa dhaalim ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka waa noogu sheegay wuxuu ku leeyahy waa lala soo saaraa dadka dhaalimiinta dadkaasa la soo saaraa ninkii ragni la sameeyey asarkum aladiina dalamuu soo maha fatamasukum alcadaab cadaabka ilaahay subxana wa tacala taabanayo shacbigu waa iska aaminsan yahay maalin kasta qofaa la dila waa la oynayaa aawe kii mas-uulka weli mas-uul noo yahay kii kale wax ninka wax ka qabanaa male waa kaana waa sidee aan maalin kasta aad dad ina qof la dila raal agu naqan karta aamusi kartaan oo hadhow waxaa laleeyahay marka doorashaa la galaya waa lasoo naqanaya ilahay naguma soo celiyo dhaalimiinta ilahay naguma soo celiyo war in imis dhiigaa daadatay ilahay inaa ka baqna weye walidalika waxaan leeyahay shacabka haddii aad xaqa ka hadlin oo mas-uuliyiintan runtaa u sheegin oo nin kastoo mas-uulka qabiilkiisa aada ka jeedinayo ka leexinayo oo mas-uulka qabiilka kale ku leexinayo wallahi kulligeena asla gamban dhulka hadar nagu dhacaya war dhiigga muslimka yaasaan loo saharsan ninaa mas-uuliye qaada wuxuu yidhi anaa dowladda ah anaa madaxweyne ah anaa ra-iisul wasaare ah anaa amniga hayo anaa waxaa hayo booliska xukuma waa inoo iscasila waa inoo ka tagaa meesha loo xisaabtamo la baaraa weye oo leeyahay xataa xasilaad lagu dhaafo maaha xaqaaga haddaa adiga raasa cid ku raadinaysa malaha marka intaa dhiiggan saan u sahlan leynine maalin kasto dhaalima ilahi nagu soo salada wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalibin yanqalibuun dadka dhaalimiinta halkay aadi doonaan qiyaamaha dadka u sacbinaya dhiig daatay ama qabiilkiisa ma aha dhahayo raalli ka aamusan
أما أدها معارض محافظ وكل قاعد ديك مسلمك إلهي هالكيك قلاين قيامة. نسأل الله سلامة العافية. قد كتلفونك فرضنا إن شاء الله. ألو هلا شيخ. ها السلام عليكم. ايوه سمعت دالتو كوفر افريكا حروينا سؤال ويدي هاي dukaanaan ka shaqeeyaa marka waxaa waayo qolo oo deriska oo customer kamid ah waxay keeneen machine oo lacag lagu shubayo dadka ay dhiilaan marka dadka lacagta ay dhiilaan baalka koronto ku shaqeeyaa marka waxaa dhahay markii aad furaysaa baalka 30% naga siinay camal marka uu furayo lacagtaas waxaa ka qaada 30% oo naga siiyaa marka lacagtaasna artemi waxay baan u isticmaalaa marka ma xaraan ma مشيك قمار لو ديلاميا mishiinka dad qamaar kuri laakiin aniga ma dheelo laakiin qamaarkaas ما بنان أخي ما بنان هدي قمار لو ديلو إن برسنت كقاعدة ما بنان مالك الهجيستان أكتادي كنسن إن شاء الله يا ما صنت بارك الله فيك ويجي أصلا سؤالين وكويتينو هاي السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله شيخ waxaa rabaa inaan ku weydiiyo iyadoo weysada salaada ay dooran tahay dad oo gaala ah la joognaa inaa anta caada ah u taab salaadeeda muduga kara قف رجع مس دمر dumar ما هدا أديك تابت ويسوا كاجبيسا ii ka daa taabto weysada migi jabe وكاجبي دمر دا تابيسها weysa qaad ma ugu waajibayo ويسقاد على قربها qolada caadiga ah isla joogno iska dukadaani هذه قول أنا يويدي اسمه قول هذا اسمه حاليا ملك اللي يحكي ويدي هذه أنا يويدي سوق شيء إن شاء الله لنا كلالو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صولي. ها والله سؤال رأينا كودي شيخ. تفضل أخي. وقبل بينه وحكي عايش شيخ وقرح. واقرت. قرح دعي دولته وحي صار كأمني وزارة هي طليب بلوك. واقرت. مركب مدحونا تبقى أكشيك ليش انتو كسوق الكراه. بارك الله فيك وكاga jawaab su'aashaas insha Allah madaxweynaha oo Hirshabeelle maskan oo wadanka dhan madaxweynaha federaalka farmaajo intuu kusoo gali karaa dambigaas maadaama mas'uuliyadda yani dad og yahay ay hayaan ma ka qaadi dadkaas ma ka qaadi markay wax dayaceen yaa u magac dadka la magacaabay ma laga qaaday jagada markay dambiga galeen bas waa ka aamusay maya jaga in la qaado macna ma sameynayso maya bariya qofka bariya ka dhigaa macna ma sameynayso Soomaali waxay isku haastaan kursiga markii laga qaado ciqaab ugu weyn mal ninka Soomaali kursiga laga qaado ma sameeysaas ma sameeyso su'aashaas iga jawaab ka bacdi waa kaaga jawaab su'aashaas ma sameeynin meeshaas oo marka mas'uuliyadda soo gala tala soo marka insha Allah qadka dhinaca kala low السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سؤال بان دونينا كويديو واقرت قرآنك waxaa ku jirta ummadii yahuud la oran jiray inay anbiyada laayeen aayad noocaas ba ku jirta dad ay leynayaan oo yuqatiluna abnaahum soma fahmin واقرت oo ay anbiyada laayeen anbiyada inay laayeen ha anbiyada laayeen نعم yaaba kale banaysteena waa jirta quraanka anbiya بغير حق نعم ka waxaan ku weydiinayaa ummadda Soomaaliyeed ma la oran karaa ummadaas la dhaqan yihiin maadaama wixii ay ummadaasi sameyn jirtay oo dhan ay maanta ummadda Soomaaliyeed sameynayso waxay sameyn jireen oo dhan inta u badan way sameynayaan ma lagu xukmin karaa ma la oran karaa ummadan asalkeedu halkaas ka soo jeeda ama dadkaasi la kiisiin waa su'aasha koobaad نعم su'aasha labaad waxay tahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waqtigiisii rag munaafiqiin oo uu tilmaamay hebel oo la wada garanayo uu saa gacanta ugu wada fiiqay baa jirtay واقرت ما كو ودا فيقين لكن حذيفه uu sheegay hay xudayfa uu sheegay waa laakiin waa la garanayay daraga munaafiqiinta waa la wada yaqaan hebel sifaad la sheegay sifaadkan waa la garan karaa sifaadka waa gart su'aashaad maxay tahay okay sifaadkaas saddexdii sifaad la inoo sheegay siyaasiyiinta Soomaalida maanta hadii shakhsi lagu arko ma la oran karaa waa munaafiq badax tiran su'aasheeda labaad waa taad oo maasantahay shaab hay طيب بارك الله فيك dhinaca kale halow هلو هلو نعم كلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وصول وعليكم السلام. بارك الله فيك. شيخ وصول أنا ربنا كويديو. هاي. ما شاء الله نحن ربنا كويديو. dad kan ulul amriga waa Soomaaliya ma maartay madaxda ka waxay ku taacadiyeen ummadii dalkii oo ma garatay waa gart
marka siba maaragtay ra'iisul wasaaraha wuxuu sameeyay garanaysaa dalka inuu dhaafsiisto mataqaanaa ii sheeg laaluush iyo wax la hadla arrintaas waxay caddeyn kartaa qof muslim ah inaad tiraahid la madaxweynaha farmaajo wala ra'iisul wasaaraha dadka ku xukmaya dhahayo waxaasay xadeen ama saasay sameeyeen ma banaana haddaa cayino u haynin afkaaga ka ilaaliso taladan ku siinaya wey haddaad waxyaabihii oo dadkii lacagta la siiyo oo meelaha ka sheegaya wararka raadi muqdisho ama laga sheegayay facebookada haddaa wadatidna dembi waaye oo qiila waqaala ilaahay waa reebay diinta waa reebtay marka su-aashaada warso adigoo qofna dhihin waxba oo dhaqday su-aashaada warso haddaad midda kale barnaamij siyaasi maaha su-aashaad haddii diin ku tacalluqdo i weydi haddii laakiin siyaasi ku tacalluqdo siyaasiyiinta la tag agteeda kuwa iyo meelaha facebookada wax laga sheego akhi baaraka allahu fiik su'aalo kale diinta ku saabsanaa marka rabaa inay iga jahal bixiso haye rabadaanta iyo ma garanaysaa markay kaa tagto rabadaanta hore ku dhaafto rabadaanta maqalay karaa hadda inta soo gelin shacbaan maqalayn kartaa macnaha baryan oo su'aalaha weydiin Hello, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxaan rabnaa maanta ku weydiiyo soonka weli waxay dhiman beriyaan ay dhiman oo weli la gudin هاي ka gaarsiin inta soonka kale kugu imaan ha saas hadda la ogaado hadii oo ka gaarsiin hadduu kugu gaaro hadhow kafaari iyo qalaa laga rabo hadda ka gaarsiin intuu kugu dhamaan insha Allah insha Allah baarak Allah fi dhinaca kale الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su'aalood. tan koowaad midda koowaad waxay tahay sheekh rabadaankii hore waan xanuunsanaa waan soomi kari waayey marka anigoo raba inaan soo qaleeyo haddana waa ii suurtageli weyday. maxay kuu suurtageli weyday ma cudur sharci ah ها mase waa ka caajistay ma ka caajisin waa xanuunsanaa jaanis aan ku soo mabayan waaye isbitaal baan ka dhammaan waaye marka rabadaankii kale hadda igu soo galay rabadaankan hadda qaliinay waxbaan leeyahay dhexdiisa xataa laakiin still waa isku dayin rabaa inaan soomo marka soonkii hore oo iga tegay maxaan samaynayaa haddana soomaya qaladii laga rabaa mise qalidii lagaa rabaa qalid haddii cudur sharci kaaga tago waxaa xanuunsaneed oo kankal kugu soo gaaro qalo keliya lagaa rabaa marka inaa wax bixiyo muhiim maaha maya maya okay waxaan rabay qof su-aasha kale waxay tahay qof ayaa wuxuu rabaa inuu iska bixiyo kale rabadaanka marka dadka dhibaataysan oo kale oo abaaraha iyo waxaas intuu u diro lacagtii uu yidhaahdo 30 beri oo kale baan ku bixinayaa suurtagal ma noqonaysaa dadka masaakiinta waqtiyadan ku abaarta jirta aad ugu baahan yihiin ku bixi waa lagu bixin karaa laakiin qofkii ma oga sidii loo siiyey qofkii macnaha shardi maaha adigu u niyeyso hay'adu ama qof u dhiib aad tiraaho adigoo kaa dhacaysa insha Allah hal qof wuxuu 30 maalmood cuni karo dhiib insha Allah dhinaca kale low السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رسولي وعليكم السلام محمد حسن ويلا دهواي سويدنا كلا الله. واقرت. سؤالا قبي ويلا دليا وحن ودنا كان قرباء لي مد موقتها. ها. marka katiinad ayuu soo sawir Soomaali ku qoran yahay dalbaday wuu keenay marka waxaan iri maxaa waay waxaan sheekadan awood wuxuu yiri diinta wadaadadii weydiiyay yiraahday xaaraanta waan iska dhigayaa ma banaano silsila gabara gashato rag ma gashtaan waan gartay su'aal kalena waan qabay naam islaanta wiil yaray nuujinaysa markay salaada tukanayso caanaha ka yimaada caanahaas wax dhiba ma leeyihiin maya nijaas maaha waa ku tukan kartaa baarakallahu fiik dhinaca kale halow halo asalaamu calaykum sheekh wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh waan ku salaamay baaraka allahu fiik sheekho waxaan doonayaa inaan su-aal ku weydiiyo waa gartay waxaan nahay maaragtaa nin dawladda ka tirsan waa gartay kadibna anigu baarlamaanka kama tirsanin laakiin waxaan ka shaqeeyaa safaarad naam maadaama dawladda aan ka tirsanahay culumo hore u xukuntana waa arkay maaragtaa dawladda in laga mid noqdo inay maaragtaa kufri tahay waa gartay marka anigu iima kala caddo waxaan doonayaa in la caddeeyo qofka dawladda ka tirsan ma diinta ma ka ridooway mise maaragtaa
xaalkiisu soo yahay. waa gartay dhegeysta jawaabta insha allah. hayo sheekh. dhinaca kale low. السلام عليكم. calaykum السلام ورحمة الله وبركاته. waa ku maqla akhi. waa ku salaamay sheekhi. waxaan ku diir rabay anigu adigoo mahadsan dabcan waa arkaysaa waddankeena wax ka dhacayo waa maqlaysaa. marka sheekh waxaan ku diir rabay maadaama dagaaladii dalka ka dhacayay lagu kala adkaa waayey oo dee maalin walba qof la dilaayo weliba dee waddankeena qofkii aqoonta lahay iyo qofkii cilmiga bartay la dilaayo adduunka waxaa la yidhi haddii la doonayo in waddan taxaalufiyo waxaa la dilaa qofka aqoonyahanka ah si qofkii dee loo dilo mataqan waddankii waa in la dilo qofka aqoonyahanka ah. marka waxaan ku diraba sheekhow dadka laynaya haddii loola dagaalamo qabiil oo yacni qabiilka lagu kiciyo oo haddaana dhalinyarta soomaaliyeed aan qaab qabiil ula dagaalano ka warran oon xaggaas laga soo maro. baarak allah fiik ay waa kaaga jawaab doonaa. waa masalada oo akhiyow siyaabo badanaa loo jooji karaa dadka wax dilaya wada hadala loo furi karaa haddii baqi ay naqdaan ilahay qur-aanka waa sheega ama qaabkii rab ha lagu dagaalamo markaas fain baqad ixdaahuma faqaatilu atii tabqi xataa tafi ila amri illah. marka taas waa xukunkeeda saasuu noqonaya insha allah. dhinaca kale. halo asalaamu calaykum. wacalaykum السلام ورحمة الله وبركاته. may maqashaa. waa ku maqlaa. sheekh waa ku salaamay asalaamu calaykum salaanta islaamkaan kugu salaamay. baarak allahu fiik. wacalaykum السلام ورحمة الله وبركاته. waxa weeyaan waxaa la yidhi horta muddo badan ayaa qax lagu jiraa. waa gartay. soomaali yar iyo weynba waxaa waaye adduunka ku kala yaacsan yihin. waa gartay. marka anigu waxaan is odhan lahaa waxa hadday bataan ay bataan dhibkooday leeyihin. waa gartay. wax walbana qiyaas ayay ku fiican yihin. nacam. marka haddii dhiigga islaamka batay soo in intii laga hadlo la yidhaahdo aan ka ducaysano oon ilaahay aan u laabano oon niraahno ma garanaysaa waxaan waa wax batay bal dhiigga islaamka oo la xalaashaday wax laga ducaystay len dad islaamaanu nahay soo maa. waa sax. marka diintu taas maxay ka qabtaa in isku yimaado culumaan leenahay waxaan wadaadaan leenahay dadku haddayna isqabsanin uu qof walbana qof qabsanin uuna garanaysaa la kala dambaynin waa la wada lumaya. waa gartay. marka diintu taas maxay ka qabtaa su-aashaasaan ku weydiinaa. in la duceystaa diintu maxay ka qabtaa in la duceysta ma ka wadaa. maya in la duceysto ma xuma laakiin in a soomaali ahaan isku yimaadaan fikrad ahaan maxaa laga qabaa. akhiyo soomaaliya in laisku yimaado mar kasta wax kastoo wanaag looga hadlayo in laiskugu yimaado wax wanaagsan wey. waa sax wa. soomaalida afka la yiraha laisku yimaado laakiin ducada sheegaysa lafteeda ku xiranta haddii xalaal la cunayo ilahay ducada u aqbalaya. laakiin waddan annaga marka waxaan la hadlaynaa mar kasta dadka mas-uulka nin kastoo mas-uul naqanaya inaan la hadalno horta ileen meesha wax ka qasan yihiin waa mas-uuliyadda wey. marka inaa mas-uuliyiinta laga aamuso ma aha in loo sheega waa wax dadka sheegidaasaaba isxaan u ahay laftigooda oo la dhahayo ninka soo socdana loo digoolira war ilaahay ka baq waddanka halkaas uu ku jiraaye waxaan oo laaluushkan iyo waxaas waa waxa dhiig daadina fiiri meesha mar hadduu fasaad bato ilahay subxaana allah laa yuxibu mufsidiin dadka ilaahay mufsidiinta ma jeclo fasaadaa batay fasaadkaa ku faannaa oo waxaa la leeyahay laaluushnimada waa lagu faanaa raggaa hadda dhiig daata sacbinaya ku faraxsan rag kalea ku tiiraanaysan usuusheena diinta laysku haystaa maxaaba dowlad aan ka hadalnaa marka dadka in meeha halkaas laga soo qaado markaad ilaahay u laabatid adiga qof kasta markuu ilaahay u laabto ayaa wadda xagaaga karaa laakiin nin kasta hadduu rabo tiis hadduu waayo inuu dad dilaayo oo hadda siyaasa laisku dilaa la leeyahay inay gaarto qof in siyaasa kursi lagu dilo ay siyaasadaas ay u najaxaysaa walidaalka kuwa baarlamaanka hadda cusub taxaddi challenge weyn hor yaal wujuudkooda haddii rabaa inay 4 sano ay shaqeeyaan waa in wax nidaam cusub oo ilaahay ka cabsanaya waa ina noo dooraan wixii hore inoo keenin haddii kale 4 sano xataa ayaga xataa ma dhamaysanayo fitanka si ay u socoto baarlamaanka la iskuula galaa marka dambe ayaga 4 sano inay joogaan u qabaan laakiin 1 sano haddii wataan ay nasiib noqonaysaa haddii fasaadka ay ayidaan laakiin haddii ilaahay u dhowaadaan ay fasaadka ay dhamaan oo qof ilaahay ka cabsanaya ay ummadda u dooraan waxaa laga yaabaa ummadda inay badbaado laakiin weli nina wax u qabta soo gata camal wuxuu leeyahay ninkaan anaa soo gata anuu codeyna u leeyahay hay waddanka see loo maamulaa waddan saasa marka see khayr loogu fishaa
marka ilaahay waa isla duminaya ayaga iyo kee dooranaya kee inay doortaan rabaan ayaga waa isla dumayaan maxaa yeelay dulmiga ilahi subxana watacaala ma kaalmeeyo waana imaanaysaa ayaga naftigoodu hadday rabaan inay wadanka 4 sano ay tale ay kusii yeeshaan waa inay hadda saaxig ay keenaan nasal allah salaamata caafiya qadka telefoonka halow halow السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله شيخ العلاج أجر حسنات الله كاسي برنامج كان موضوع هذا سؤال بعض تكود أخي عدك كرقات وحير أنا قدام بان دشي أو ملاي قدام بان ها ما قرأت أنا قدام بان دشي مركا سيدي إذا نبالي قداي دي سيدي إذا نبالي هذا نوين بان قضي مو والد كنا سيدي إذا نبالي قداي إلا هذا marka dadkana inta badan waxay dhahaan waa la sarsaraa oo mase qofka macnaha waxba dhiig baa laga daadiyaa waalidkeena wax ayaga may sameynin marka daadan waa weynaaday arrinteeda bal waxay diinta ka qabta midda koobaad in ay fiiriso may mar hadda midda labaadna anoo tan labaad midda labaadna anigoo yar baa macnaha hadda ka hore lacag $100 oo falsa ahayd baan dukaan ku qalday oo aan ka sarrafay haddana weyn baan noqday lacagtayda macnihii مساعد ما دقي كرام مصدقين كراسة إيجا بحكر تال عقد فالسة ده هيد أو $100 أو أنا ير وان أوجد فالسة هيد وأوجد إن فالسة تاي وان يرى لكن هوان أقارن توسع تكان كلمة تقانا قف كأكسس ما تمقرن يسا إيه الكيس قرابة ديس نينكي باكتة يودن قدم تشوف واجز دكان ولا ما هي اللي كرتانينك ما نكاسي قرابة ديس وحي اللي كرتين ملح ما يواب يراب وحي واب وقت ما وصدقي نكاس أنيس قف كاس أنيس صدقي العكتاس إن شاء الله صح أنت كلامك كاك جواد دقيس لنعك الهلو طيب سؤالان كجوابنا إن شاء الله إن ولا الكهرب وحجري إن سفارة أن كشقيا إن مركا دولتنا الشقيا قال ما لو نغنى طيب هذه هو شقة ونيتك وحرتها قف كسته إن الله إن قف كسته إلهي سبحانه وتعالى وحول لا يقول له النفس إلا وسع لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت سفارة دي وناك وشقيس ومد وقدميس وشقي كرتا عماش يا إلهي كو قيميناي نيك لكن واحد لها تكفير جماعي والله قالوا ود الله يميلك صور تمارك قف ليه كار دولة ليه كريدنا قال ما جرت عين ونقي كرتا قف wax lagu tuhumo laakiin loo shacabkana gaale ummadana gaale waa qolo takfiirina qabta ra'yigaasna raajix ma aha waa laga rajaxsan yahay marka ku fidnoobin laakiin adiga li xumaanta iska ilaali insha Allah inaad meesha ka shaqeysto xumaanteeda walaalka kale wuxuu leeyahay waxaan ku dhashay anoo gudan ma lay gudahay mar lamay ma lagu gudahay sharti maaha in lagu gudo mar hadaa ay xasishay sifada guni Allahumma duu wax ka dhiman yahay sa u gudneed ee qalooc ku jiro oo wax ka dhiman yahay waa la dhameystiraa laakiin haddii si thani u gudan tahay wax kale u baahan tahay mal insha Allah maalka kalena waxaan yiri waa sadaqaynaysaa maadaama qofkii aad ogeyn aan heli karin maxay maalka inta sadaqayn waxa la rabaa inaad raadisid cid lahayd hadda cid waysa dadka dhaxalka lahaa inuu dhinta laga yaabo ninka wax ka qaadatay qaraabadiisa raadi qaraabadiisa ku wareeji aabahana maalkan ka qaba dhigi kartaa maalkan abina askale xataa sharti aad u sheegin waa ka xaday iyo aad u sheegin waxa ku sameysay amaanadaas inaad iska ilaahna u tooba keedid insha Allah labaas ku dadaal qadka telefoonka fiirnina insha Allah waxaan filayaa iyadana kafqaasna asna waa ka go'ay filayaa السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekhow waa ku salaamay ugu horeyn barnaamijkan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto sidoo kaleete inaa ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan aan salaamo gaar ahaan soomaalida ay raado insha Allah ilaahay khayrkiisana waafajiyo ramadaanka ilaahay nabadgelyahan u gaarsiiyo waxaan rabaa sheekhow inaan ku weydiiyo su'aal ah ku saabsan geerida nebiga sallallahu alayhi wasallam runtii geerida nebiga markaan ka hadlayno culimo qaar waxay tiraahdaa nebiga waxa uu ahaa shahiid maadaama ay daliishadaan oo ay yiraahdaan macnaha wuxuu u dhintay suntii lagu soo sameeyey Khaybar culimo qaarna waxay yiraahdaan nebiga sallallahu alayhi wasallam shahiid ma ahayn ayagoo daliishanayo markii nebiga sallallahu alayhi wasallam iyo Uthman iyo Umar bin Khattab iyo Abu Bakar ay buurta Uhud gilgilatay ay saarnaayeen oo yiri nebiga sallallahu alayhi wasallam
xasil oo kuma عليك saarna شهيد ilaa يا nebi صديقك النبي نعم ha maahan taasi waxay dhahayaan taasi micnaha waxaa laga daliishan karaa nebiga sallallahu alayhi wasallam inuu nebi ahaa oo abubakarna sidiiq ahaa shahiideenkan labada shahiid la sheegana waa cumar iyo cusmaan ay ahaayeen saa darteed lama qaadan karo nebiga sallallahu alayhi wasallam inuu micnaha shahiid ahaa ayagana ku doodaya marka mas'alad kale taa rabaa inaan ku weydiiyo هاي ayadana waxaa jirto micnaha ما هذا تم waxaa سؤال rabaa شيء inaan محتها مركب نبي شهيد مو أهم اسمها ما سؤال micnaha nebiga shahiid muu ahaa أخي mise ma ahayn ان مسألة هاي تنكلا وين تنكلا kaadi tan kale waxay tahay culamo qaar sidoo kale waxay ku doodaa nebiga sallallahu alayhi wasallam inuu nuur ahaa mise nuur uu ka samaysnaa نعم culamo qaarna waxay tidhahdaa nebiga sallallahu alayhi wasallam maadaama ibni aadan uu ahaa isaga micnaha nuur ilaahayaa nuuriyey mooye nuur kama samaysneen taasna waxaa rabaa inaan noo bayaamisid sidoo kale طيب ummadda soomaaliyeedna iyo muslimiinta guud ahaanna aa u bayaamisid waxaas mas'alada shahiid lagu noqon kara micnaha waxyaabaha shahiidkan oo qofka uu ku noqon karo waa mahadsanta طيب إن شاء الله لنعك الهلو هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ رسول الله السلام شيخ أنا هل سؤال نقول فيديو سؤال شو حوايا أنا حاس كيجو سالهان مريا وجلني مركا أيضا ممكن أن أصور شيء أنا جنا عدك كرقات أخي وحاتر أنا حاس كيجا حنت مقول تو كلا كوريو كلا يبسني أسقطتين ها marka ayada nin kale waxa soo dhashay anigana naag kale waxay soo dhashay dhaxalka ilmana waa isku dhalnay marka dhaxalka qaabkiga oo kala qeybin lahay شركة سoo kala ma cadda haaf ma kala leediin ha dhaxalka saas loo qaybinaa adiga carruurta ilmahaaga kale oo islaanta kale ka dhashay haafkaaga wax ku leeyihiin ayadana carruurta nimanka kale ka dhashay ninka kale ka dhashay haafkeeda wax ku leeyihiin okay hal su'aal ay dhiman raala ahaa su'aasha labaad waxa waaye hooyaday waa yeel waaye qaliin hadda dhow martay kulley soo socdaa marka haddii aan hal qof aan soddonka bir aan quudino balka war adiga go-aankaas ma leed hooyada soonka see u aragtaa ma soomi kara ma tiri dhakhtar maa yiri ma soomi karto ayada maa tiri haddaa sooma waa jirina mase idinka jecel ah waalidku qabti maya ayadaa tiri dhuuntaa laga qalay ma soomi karto ayib rajo haddii laga lahayn inay ka raysato ma rajo laga leeyahay marka qaboobaha bilowdo ay soomi karto maya waa yeel deetaa ka bixi marka masaakiinta laga bixiyo insha allah waa mahadsantahay jazaaka baarak allah fiik dhinaca kale alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekh waxaan ku weydiinaa sekada haye waxaan xisaabiyaa ganacsadaan ahay dukaanan xisaabiyaa bisha sekadan dukaankii furay bisha sekada markaa xisaabiyo isla bishaas inta lagu jiro maa inaan sekada bixiya laga rabaa mise sekada kale intay la gaarin waa bixi karaa waa la horumarin karaa dib looma dhigi karo horumaris waa horumarin kartaa dad baahi hadday jirto waa horumari jirin salafka nabiga alayhi salatu cabaas oo ku horumariyey laakiin mar haddii bishii sakada la gaaro dib ma u dhigi kartid isla waqtigaas inaa bixiso may waa dukaanka markaa xisaabiyey waa xisaabiyey intii bishaas sakada kale la gaarin inta kale waa bixi karaa waa bixi kartaa ha dhinaca kale وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekh su-aalaan qabaa su-aasha waxay tahay nin baa gabar guursaday meherkii markaa wuxuu ku sameeyey magaciisa oo hooyadiisa aabihiis ay u bixsadeen oo faamiligiisa magacaanan ahayn oo ku sameeyey marka macnaha markii la meherinayo magaca kale oo lagu meheriyey ha magaciisa magacaanan ahayn iyo aabihiis iyo faamiligiisa oo macal abtiriskiyo iswato aanan ahayn meherka ku sameeyey haddana wuxuu rabaa ilmihii inaa loo bixiyo magacaas oo isaga uu la baxay sharcigu muxuu ka qabaa nacam waa fiir magac waa la bedeli karaa asalka inuu bedelo magaca abihiis maaha laakiin nikaaxa wuxuu ku xaqiiqoobaa magaca mala fiiri nikaaxa qofka goobjooga ahaa haddii uu isaga ahaa oo la yaqaan ninkaas qofkaasay gabadha ku mehersan tahay magaca oo shardi ma aha ilmaha in loo bixiyana
haddii asaga dhale waa magacu asaga wataa loo bixinaya ilmaha magacu asaga wataa loo bixinaya dhinaca kale low السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أصولي وسركال كلها نمكن كلها الله وسركال. واقر. لا دقالمي تلسكي سياد برك. تلسكي؟ سياد برك سياد. واقرت. marka dadka waxay ugu yeeraan mujaahid ma aha bismi maadaama aanti dulmi الفاظ في لا مشاحة في اصطلاح ان الفاظ لفظ مجاهد ان magac markii jihaadka kaliya ma noqdo waa badan yahay marka adigo is ogsoon tahay inaad jihaad aad gelin oo islaam iyo gaal loo dagaalamayo laakiin wax kale inaa mujaahid ku taa laga yaabaa ma dulmi haddaan diiday oo dulmi iyo gardarro iyo dil haddaan Soomaali saas u yaqaan ninka dulmiga diiday mujaahid iska dhahan dhib ma leh islaaxaas dhib ma leh mujaahid muhiim ah hadda mujaahidkii oo diin ma u dagaalantay weli diin ma u dagaalamay Soomaali naam wixii إن شاء الله إله كادي جنين مجاهد كل جينا 80 مجاهدين دم بما يجي معنا يدك هذا مجاهد يقول ما يعني يقول جينا معنا سومالي دم مكاجي معنا إن شاء الله لفظ مجاهد معنا بدن وحنبار سنا كلا أيوة أيوة لنعك هلو 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 قفكاس تي في قول جيسنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أسلو وعليكم السلام. بارك الله فيك. شيخ وحارة أنا لو سؤالات كويدية. هاي تنكوات. تكوات وحاوى ورتا مركان يرى يعني waxaa jooga baadiyaha waa taqaan qof markuu baadiyo joogo markaan adiga ilaa aan da'da soo weynaanayo xoolay waxa saa raacay ilaa 4 sano qaad dadka markay baadiyo ay joogaan haddana xoolo raacayaan waa dareemi kartaa heerka ay diinta ka taagan yihiin marka waxaa jirta ilaa 4 sano qaad si sax ah uma soomin waa gartay taqriiban hadda waxaa laga joogaa dhowr iyo 10 sano waa gartay midda koowaad waxay tahay ku weydiinaa yacni soonqaadkaas iyo soonkaas aana soomin salaadna iska badaa iyadana waa gartay marka waxaan rabaa marka soonkaas iga tegay iyo salaadahaas iga tegay wax badan aan ka fikirayay adiga wixii ka dambeeyay adiga ilaa 4 soon qaad waayo laakiin wixii ka dambeeyay alxamdulillaah waa soomay waana salaadi jiray waa gartay talabaadna waxay tahay mar dhaxdaas dawladda la shaqeyn jiray ama dawladda Sheekh Shariif jigboonti oo dawladda u yaalo ayaan kontaroolka ilaalin jirnay maalintii marka waxaa naga la sii jiray lacag ayoom la dhaho 50,000 shilin Soomaali ah dawladda ma u ilaalin jirtay mase isbaara ay idinka dhigateen ma dhigan aniga dawladda canshuurta lacagta qaadaysa ma haysa ka wadaa macnaha no aniga ma dhigan aniga saraakiisha meesha mas'uulka ka aheeday oo xilligaas la dhihi jiray Mooriyaan Garey oo xilligii dadkii maxkamadaha ahaayo la dhahay meeshaan jagboontiga jooga wixii dhaqaalaha dawladda uga soo arooriyay haddii corruption waa iska jira marka aniga waxaan ahaynaa askarta meesha ilaalinaysay maalinta lacag waxaan ka qaadan jirnay 50,000 oo shilin Soomaali amba 100,000 qof sida adiga loo kala sareeyo naam marka lacagtaas ma layga rabaa haddii layga rabo saqaabkii ku bixinaa soonqaadkan iga tagay iyo salaadaha lacagtaas haddii dawladda inii qoyndoysay ku tiraahayn meesha ilaaliya lacagtaasna ka qaad wax ka badan ma ka qaadataa intaas aan ahayn ma arka aniga kama qaadanin laakiin waa dareemi kartaa haddii meesha haddii la joogo mar aan ninka jagboontiga joogo xalenayo maanta kontonka waa shaxaad iyo dhiib yacni wax oo laakiin lacagta waxaa dawladda qaadaysay laakiin saraakiisha meesha joogto ayaa say rabaan ka heli laakiin aniga 50,000 aan ogala qoondiya aan maalintii ka qaadan jirnay lacagtaas marka waxaad dareensantahay in dulmi lagu qaaday adig aniga saasaan dareemsanahaa sababtoo baarak allah fiik celi marka lacagtaas qiyaas iska celi in sha allah okay soomamka marka anigoo aan wax طيب soonka ana kaaga jawaab dhageys in sha allah hay su'aalaha ma ka jawaaba nin odaya su'aal weydiiyey wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam shahiid muu ahaa culimada isku khilaafeen akhiyo masaladan samaradeeda masalada khilaafka waxaa jira aan samara lahayno ay culimada ay ka hadlaan oo khilaaf lafdina la iska dhihi karo maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam kownuhu shahiidan iyo kownuhu nebiyan hadda wax isbedelaya male darajadiis wax ka bedelinaysa male oo lama dhahayo nebi uu ahaayo shahiidnimaa ka weyno balse nebinimada ka weyn iyo shahiidnimada
أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء في النبيين تلا هور مريا مركز عاركيس أمريكا إن مرتبة النبي نبذ ومرتبة بني آدم إيه جاران تنقص صار يسوي مرتبة كلام حي إلهي إنه قدرته لقوسه وحيده مرتبة كوين مال شهيد نبذ حتى كوينته مركا شهيده هاي وحي كردين اسمه الشهيد مرتبة اسمه كنا قسم النبي عليه ولذلك وحي الثمر لذا يتنقل نور كوكل عليه الصلاة والسلام أساقا مركا إن مسألة خلاف وحبة ثمرة عن هين وي مركا أسكم مشغولين علماء ذا مرة قاركود مسألة علم هاني وبارعيان لكن وحد ثمرة إلى هذا مله طبعا شهيد وحلو نقضى شهيد واجر شهيد دنيا وآخره أجره ننكي كان دنيا وحوا ننكي وبقاضو ننكي سركسو دونتو ننكي جبتو كل شيء الله إسلامته أمور راعته شهيد الدنيا اللي يرها ولا دقة وعلى مرسين أحكام تمد لكن شهيد كلا جهات كقول أنتي إن كاس أسقى نقول وحوم باهنا والدوية إن شاء الله إن ولكن وحولي أفر صون اللي يقول لي أخي وهذا إلهي وتوبك أنتي صونك صلاة ولا قربا نعم علماء ده سوا جرتا صلاة صون كبدي وحيور لقى مرة علماء ده سوا جرتا لكن إن علماء حقن يكون لسه مكيس أصلا هيان هاي نينك صلاة كتجو وحوي نين إن قال لما لو حكمه مركا نينك دو قال نقضوا الدين تمربا سو قالوا صونك هوري صلاة لقى مرة إن الله حساس وقال لما لو حكمه لكن قولك أنا أرجح إنه مثلا الشافعي قاصدا قفك الصلاة ده وعلى قربها صونك وعلى قربها سوق اللي إن شاء الله بقول إلى باتم مال الموضوع صون كاجا أفر بلو من صدن وي بقول إلى باتم مال الموضوع سنين قميص كستدا صن مركز دتك صن سومايان تقلوا نيستي وكاب حسان إن شاء الله تاس وعلى قربها صلاة دنا صلاة بصلاة كسر راعي إن شاء الله مسألة ذا كان نواب الشيخ تبع جاك بونت وحكى غادرنا هذيك نفتقى نبي عليه السلام حور دنبي وحوار قفك نفتي سوحو كشكيو وتردد وما حاك في نفسه وتردد وقسمه مركز هذيك أساس درسته نعم جاك بونت ياش أن إسباروي كدد دجناي دذا وحلو دعاية حتى الدولة الثالث والو جنبناي مركز إن أسده رسيد وقوف عن قفك مسلم كا أنتم مالين وحا إيمانيس لا ينفع مال ولا بنون إيمانيس مركز مال وحكوا أترى مال هده النبي عليه الصلاة والسلام من كان عنده مظلمة من أخيه فليتحلله الآن والنبي عليه الصلاة والسلام ونك ظلم إنه قال ولكن قفك قلي هذا كحلاليستو محي المال كاس درهم دينار وحكوا أنفعية مالها مركزاس يكون أحسن أرجح إن سوق ليست صلاة كستا كتير أنت تاس جودني ستير بكتير مادنا نين ودد هاي تاي وحديث كها نك إلهي يسوع دوادو يرتاكو أن أنا يدودنا نك يدودنا يسوع دوادو وحاول باع دوادا نك تاكي يسوع دوادو دوادا ويرنبع على إلهي سبحانه وتعالى حديث قدس مرك أنت كجرس هوشة هذا تير بكتير مادنا إلهي نين ودوادا تاي إلهي سبحانه وتعالى وكودي مدافع إن شاء الله قد كتلفون قالوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sheekhow laba su'aalood. Tan koowaad waxa weeye dadka ganaaxa la saaro qofkii haddii maxaa la yidhahdo waxaas gaarigaagii intaas oo mushaara bixin lagu leeyahay waa bixin weyda ganaaxa ku saaran. Sidoo kale dadka qaarkood korontada baa markaa la daahdid waxaa lagu leeyahay haddii korontada lagaa jaro oo hadhowta aad dib u soo furanaysid intaasoo ganaaxa ku saaran wadamada aad joogin ma ka hadlaysaa wadan muslim ma ka hadlaysaa wadamada ya muslim maali oo kale waxa la korontada inta laga jaro wixii lagugu lahaa ma ay toban marka dambe dib lagugu soo celinayo waxa lagu leeyahay intaasoo ganaaxa lagu bixinaysaa soo celintaadii iyo meel kastaba oo way ka jirtaa baawur wado ama wax wado ganaax waa iska jiraa heshiiskaas ma gashay marka hore ma gelno mana ogolo qofka ma ogola qofka inuu bixiyo marka korontada su'aasha taale markii korontada lagu soo deynayo ama lagu dhahayo haddii aad waqtigeeda soo dhaafsiisid ganaxa lagu saaraa heshiiskaas okay taab lagu sheegay laakiin marka laga jaro rabo ba waxa lagu leeyahay korontada haddii waa daahid oo laga jaro oo lagu sii sheegay intaan wali laga jarin haddii laga jaro 10 baa bixin doontaa ganaxa ama 20 ama 25 su'aasha koowaad su'aasha labaad aan ku weydiinayo su'aasha labaad aan ku weydiinayo waxa weeye dadka dhalinyarada ah waxay u badan yihiin qaar aan tukan salaad tukanayn sanadka dhanaysa tukan baa laga yaabaa ama gabgab ku tukadaan rabadaanka markii la gaaraa waxa la bilaabay rabadaan weeye aan tukanno waxa laga yaabaa bisha rabadaan inay toos u tukadaan salaadooda oo rabadaankana soomaan dhalinyaradaas ayaga ka waran waxay maxaa la yiraahdaa sharciga islaamku ka qabo
qodobka saddexaad waxaan ku weydiin lahaa oo kale dadka hadda na dhegaysanaya waxaan u gudbinayaa fariin waxaan u gudbinaya inay ka faa'iidaystaan waqtiga sheekhiga waa ka faa'iidaysanaynaa inay jaanis fiicanna siiyaan oo dadka sheekada iyo waxaa ku dhex wada waxaan jeclahay in tv-ga ay jaanis fiican siiyaan su-aalaha barnaamijkan oo ay u fududeeyaan su-aalada soo dedejiyaan saddexdaas baan qabay sheekhu waa mahadsantahay baarak allah fiiq jazakum allah khayr dhinaca kale السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو سلام كل سلامي. بارك الله فيك. مسألة دير عن قضي شيطي. أيه. وحنلاقي هاي مال شركات ترافل اجنسي. ترافل لايسن. ترافل اجنسي. اجنسي يعني soo saaro. Dadkan waxaan u soo saarnaa waxaan ka caawinaa inay helaan natiijooyinka iyo waxyaalahaas. waa gartay marka waxaa jirto waa taqaanaa dadka badanaa caawina waa dad Soomaali ah oo baasaboorradooda waa iska daciif oo yani wadamada qaar cod kor u qaad waxyar dadkaan caawinay dee waa dad Soomaali ah oo badanaa baasaboorradooda looma ogola wadamada qaar waa gartay marka badanaa waxaan sameynaa in safaaraddii xiriir lala sameeyo oo dad khaas ah ay usoo fududeeyaan oo lacago gooni ah lagu siiyo oo yani wadanka ma joogtaa adiga usoo saaraan wadanka ma joogtaa wadanka ma joogtaa waa wadankii haa waa gartay marka lacagahaas la bixinayo si saraha ah oo aanan la marsiinaynin sharciga caadiga ah ee safaaradaha u yaaliyo si gooni ah loo siinayo ma wax saxana mise waa iska macnaha lacag dheeraada ka qaadaysaan si aad fiis u soo saartaan ha yani lacag wax la siinaya dheeraada oo lacagtaas marka safaaradaha wax ka siinaysaan of course qof yani meesha ka shaqeynayo kale mukhalas loo siiyo inuu fududeeyo nacam waa fahmay su-aashaad baarak allah fiik akhi طيب walaalka hore su-aashiisa weydiiye horta waa u mahad celina walaalka wuxuu yiri su-aalaha wararkaya lagu dheereen run wey dad badana kuyuu ku jiro walidaalika aniga markaan su-aasha ka jawaaba xataa daliil iyo ma raaciyo intaas waxaa yeelaa dad kuyuu ku jiro oo sugaya oo su-aal ku dhegan tahay oo su-aal ku taagan tahay qof islaan su-aal ku taagan tahay oo diinteeda in loo sharxarto ayaa baruurtiga siiya waana sheegay ninka saa'ilkan waxaa layidhi mustafsiga ninka wax weydiinayna madhab muftihi uu qaadana dhib mala kaas oo qasab maaha inaa markasta daliil ah raaciyo marka walaalkan waa soo jeediyey wuxuu yidhi yaa lagu dheeraan su-aalaha si gaaban ha loo sheego sheekooyin dhaadheer yaa la gelin baarak allahu fi nasiixadaas waa wanaagsan tahay jazaka allah khayr su-aasha weydiiyey ganaaxa akhi waa arrin heshiis waaye hadduu heshiis yahay oo lagu heshiiyo lagu yidhi qofka waxaas daa samaysid waxaa lagu siinaya cuquubada waa mas'ale oo iska oo curfi ah weeye wixii lagu heshiiyo waa ma tacarafa almacruufu curfan kalmashruudi shartan alla qaacidaas loo soo daysaa jacli qofka inuu sameeyo oo yidhaaho arrintaas dhacays maxaa yeelay dadka waxay arkeen in dib u dhiganayaan ama ay lacagta bixinaynin in laga goynaayo oo waxaas loo sheegaya marka ninka kaa goynaayo shaqaalaa lagu soo ratibaya korontada kaa gooyo ku imaanayo waqtiga ku bixina marka haddii wax la saaro haddii heshiiska ku jirto laa baas laakiin qofka oo heshiiskan loo sheegin in layska qaraamo ganax la saaro ma banaano maxaa yeelay shardiga aad la shardantaba ma ku jiro halkaas ma banaano nacam dhalinyarada tukanayso ramadaanka waa wax fiican wey insha allah lacala allah inuu kusoo hanuuniyo ayaa laga joojinin lama dhaha ehel salaadii jira hadda maxaa ka tukaya la dhihin ilaahay subxana wataala duu soo hanuuni bal hala yidhaaho salaadihii horena lagugu leeyahay markaad tukanaysa salaadana iska soo qallay maxaa yeelay qofka inuu soomo oo salaadiisa kuma xirna soonka hadduu soomi karo soonka suuna tii salaadana waa laga rabaa laakiin haddaad salaadiina sooma lagaa rabo lama dhihi karo ama haddaad salaad tukatid soomayn salaad maxaa ka tukay lama dhihi karo iskuma xirno arkaan kala go-an wey mid kasta gaara looga rabaa qofka marka hadday bisha ramadaan ilahay soo hanuun dhalinyarada wax fiican waa halagu dhiirigeliyo waxba yaa lagu sii adkayn insha allah si ay diintaas ula qabsaan lacala allah subxana watacaala ramadaanka say u bilaabaan inay soo naqanaa laga yaaba salaadii say u bilaabaan ay tahay laakiin loo sheego inay soo qalaynayaan laga rabo intaas loo sheego walaalkii kale wuxuu leeyahay shirkadan agency aan haynaa agencygaas marka soomaaliya dowladaha qaarkood fiisa looma ogola marka nin muqalasa waxa la siiya fiiri masalada muqalaska ama risho waa bixinaysaa laaluushaa bixinaysaa laaluushkana shuruuduu leeyahay waxaad ku dalbanaysid hadday fiisada ee dadka xaq u leeyihiin in la siiyo
oo laakiin raggan oo meesha jooga safiirka iyo dadka la shaqaynayay ee dadka ka dhaadhiciyeen dadka lacagaa kasoo aruurinayna adna waxaa lagu siinaa ninka qusulka la yiraaho ee adkay oo waxay dadka xaq u lahaayeen oo ku adkeeyey lacagtaas aad bixiseen kii qaatay dembi ku tahay maahane idinka aad bixiseen dembi niguma ah haddiise oo aad ogtihiin inay khayaano tahay oo aad rabtaan waxaan sharci u lahayn qofkan la siinayo laaluushsa u bixi laakiin markuu laaluushku dhibo wuxuu sharci u lahayna loo raadina oo xaq u lahayn ama baasboor dhacan oo wataa ama baasboorkiisa ama waa nin fara wax ka yaal waxaa qarinaysaan laaluusha qaateen waa dembaabaysaan ninka qaatay iyo kii dhiibo waa dembaabaya su-aashaas ayaa ugu dambeysay wax haddaan qalday nafteed iyo shaydaana ka ahaad haddaan saxna towfiiqda ilaahay subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayh wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu